sababaha ugu waaweyn oo loo jideeyay soonka waxa weeyaan inuu qofku ka kasbado taqwa Allah ilaahay cabsidiisa subhanahu wa ta'ala in iimaankiisu uu ziyaado taqwadiisu markii hore meeshay joogtay ay ka ziyaado sababaha loo jideeyay siyaamka asbaabahaas kuwa ugu waaweyn waa taqwa Allah bal ahlu cilmigu waxay yiraahdeen wax kaste oo faa'iido ah oo soonka qofku uu ka dhaxlo uu ka helo waxa ay ka dhalata arrinkaasi uu ka dhalanayaa taqwa Allah ilaahay cabsidiisa waayo qofku markuu soomo oo cunadii uu ka soomay cabitaankii uu ka soomay jimaaci uu ka soomay wixii soonka jabinayo dhan uu ka soomay waxa ku abuurmay cabsi ilaahay bisha ramadaan inuna waxaba cunin ilaahay ka cabsado inuna waxaba cabin ilaahay ka cabsado cabsi ilaahay ba ku abuurantay cabsidaasi maalmahaas oo dhan way u ziyaadaysaa markii bishaasi ay dhamaato haddii ilaahay ka aqbalay wuxuu haystaa rasiid iyo shidaal fiican iyo sahay fiican oo ka celinaysa inuu dambigii iyo xumaantii ku laabto imisa ayaa hanuunay bisha ramadaan markii ay dhalatay oo ay soomeen ilaahay hidaaye iyo hanuun uu siiyay aynan hore u helin culimada sacuudiga nin ka mid ah ayaa wuxuu yiri habeen baan imid xaramka aniga iyo aabahay iyo awowgay oo isla soconna markaan xaramka u soo dhownahay tahajjud baan rabnaa inaan tukanno waana waqtigii 10kii dambe weey ayaan waxaan aragnay nin gaari u daaran yahay muusigu shidan yahay oo aad iyo aad muusiga kor ugu qaado codkiisa oo xaramka agtiisa iska ahwaalaysan oo halka taagan oo heesahaya oo heestaas u daaranta markaas aan ku leexdo la hadlay buu yiri waxaana idin buu yiri caawo kale waxa la akhriya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ma ahan caawo kale habeen hees iyo muusiga lagu dhafra ma aha khalqiga ilaahay xaramkii way ku qulqulahayaan aduguna halkaana muusiga dhageysanaysa salaad aadan xaadirahay istighfar aadan ilaahay weydiisanahay ahwaashaadu waasi markaas waxa ugu celiyay buu yiri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni du'adii buu xifdiyay markaas ayuu ku celi uu xifdiyay waan ka tagay buu heestii buu damiyay qalbigiisa ilaahay nuur dhigay iyo hidaayo maalmihii u dhimanaa ayuu cibaadaystay oo soomay muddo 10 sano ka bacdi ah hayaan wuxuu yiri anoo meel darsi muhaadara ka jeedinahaya oo 10 bixinahaya waxa ay yimid nin dhalinyaro ah oo daruusta ka soo qayb galay oo ay ka muuqato cilmiga nuurkiisa uu ka muuqdo oo sunnada iyo khayrku uu ka muuqdo ay yimid markaas wuxuu ma garanaysaa mada ayribi waxaan ahay ninkii habeenkii Allah hadashay oo ducada xifdisay baan ahay ayadii ba ilaahay hidaaye iyo hanuun igu soo dhiibay bishaan khayrka ay leedahay caadi ma aha waxyaalaha qofku uu kasbanaya waxyaalo aad iyo aad u fara badan weey ilaahay cabsidiisa qofku markuu helo adduun iyo aakhira waa u dhameystiray ilaahay waxa uga baqdaa salaadaada oo waqtigeeda hadayicin jamaacada ku tuko ilaahay waxa uga baqdaa soonkaaga hadayicin ilaasho ilaahay waxa uga baqdaa maalkaaga xalaal ka soo shaqee حلالنا كبحي إلهي وحا وقبض أمانوينك إلهي سبحانه وتعالى أما أهات الدين كordن أما خاصها وحا ويا قرابة هي درسك هي صاحبة وحا أمانة إنك قدك كالت حيث إلهي وقبض عبسيد إلهي ميل كست أي جليسة ولذلك قفك وحا لغيابا إنه جانب كفي عنيا هي خير كأه لكن جانبك كالآخرة وكو علامته نبي عليه الصلاة والسلام وحنو شيغا مالنتا قيامة إنو إيمانا ينين مفلس وأن وحبها يسن صحابة وحي إلى مفلس مركو النبي ويدي مفلس وحا نقانا نين أن حولنا اللهين
مالنا لهين لعقنا لهين وحبا عن هيس مركاسا النبي يقول مفلس وحا لا يرادا امدayda nin la iimaanaya soon iyo salaad iyo sadaqa badan ayuu la iimaanaya wuxuu kala iimaanaya dhinaca kale asagoo midkaan caayay asagoo midkaan dilay asagoo midkaan maalkiisa cunay buu iimaanaya markaas xasanaadkiisa kan la siinaya oo kan la siinaya oo kan la siinaya markay xasanaadkii ay ka dhamaadaan ayaa waxa weeyaan dambigoodii inta la soo qaada dusha laga saaraya markaas naarta lagu la ridaya ninka isaga oo aakhira iimaanaya u fiirso soonkii iyo salaadii iyo sadaqadii ilaahay waa ka aqbalay waana ku soo baasay imtixaankooda waa ku baas taqibo dhinaca ka aha laakiin wuxuu ku dhacay dhinaca mucaamalaadka dadka uu la mucaamaloonayay buu ku dhacay imtixaankii qaybtaas aan xoog badato waxay keentay naarta inuu galo dad badan marka ayagoo soomaya oo salaadaya oo sadaqaysanaya ayaa masna waxa weeyaan amaanadii iyo waxa weeyaan mucaamalaadkii dadka ayaa aakhira loo soo joojinaya oo ay ku cadaab galayaan marka waxa la rabaa qofku salaada iyo soonka sidoo u ilaalinayo inuu sidaas si lamida u ilaaliyo mucaamalaadka asaga iyo dadka kala dhaxaysa oo dhamaantood ilaahay uga baqa ayaa la doonaya ahlu cilmigu waxay yiraahdaan taqwa allah marka la leeyahay ilaahay cabsidiisa la leeyahay macnaheedu waxa weeye an ta'mala bi ta'ati allah ala nuurin min allah tarju thawab allah balu firso ina ta'ada ilaahay samaysid oo ilaahay ta'adiisa aad ku amal fashido la timaadid adoo waliba cilmi u leh oo cilmi ku sugan ee aynan jahli ka ahayn ilaahay thawaabkiisana rajaynahay saddexda arimood weey cibaadadii baa la iimaanaysa cilmi baa u leedahay waa la iimaanaysa ilaahay thawaabkiisana rajaynaysa wa an tatruka ma'siyata allah ala nuurin min allah takhafu iqab allah inaad macsida iyo dambiga aad ka tagtid adoo ku sugan cilmi ku sugan oo ilaahay inuu kugu cadaabahayo oo dambi ay tahay og waxaad uga tagaysaan ay tahay ilaahay ciqaabtiisa cabsi ah ka baqays labadaasi markay ku kulmaan dhinaca macsida saas ah uga tagtid طاعة إلهنا سدا أولت تمادد قفكاسي قف تقي أويا ولذلك كبير الإمام الذهبي فلا تقوى إلا بعمل إلهي لقعب صدا مشرت إلا عمل فالمويان وإن قفك عمل فل ولي بعد هذه قفك وح الله وح رب السمين هاي أو صنع عمل فل سمين هين وحويان تقوى دي مهيو ولا تقوى إلا بتروي من العلم والاتباع تقوى إلهينا كوسر توبي ميسو عمل كوسر توبي مهيو إلا علم إن الاتمادد مويانه هي اتباع النبي قال راعدد سكل علمي لفتقي سوى حويان نحر يالا مهي ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص انت اسك بعدين وحال ربا عمل كي علمي مركا الاتمادد إخلاص يا إلهي درتينو كاي هاي بالله ولذلك وقفك إلهي سي تقوى داس استقامة يتوصناش أيها وإن كد ذالنا وحويا إن توصنانه صاحبدي حما سيدي أنا قصوا تجنا إن أنا كل لابن هسيه اللي دقيسن شري إن أنا نقول لابن أخلاق ذي حميد إن أنا نقول لابن وإن نفتي أن كحكمينا سيدا صون كما مساجد اللي صو عمرها يو مركي صون كل ماضو وإن نفتي أن كحكمينا دروس علم جاء يا خيركم يا شو كصعب وقفكم نفتي كل لازمية ولو ليلة واحدة بقى أسبوعي لبها بين سدح بين بها أهاته إنه درسي سوقات الدين مالك الدين إنه دقيستو إنه ننقفكم مرنانين أوصل نقول رمضان كرمضان قف إلهي كلي عبد مركز رمضان كمركز الجارو دنبيك كسو حراضة مركز رمضان كل عطة وين وسقفكم نقول ذاتك متقين تا وأولياء الله إلهي بان الشيء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ذاتك متقين تا وأكرم الناس عند الله إلهي أكتي سكوا وكرام بدنوية إلهي بأورنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أكتي سكوا إنكو كرام بدن وكوا إنكو عبسنا بدن وحلقة قرطان مرون ونأكسن تقوى إلهي وحلقة لا معية الله إلهي بمعي أهانية وحا إلهي معي لا أهانية إلهي واكو تعلانية واكو توسينية واكو هيلينية واكو إلالينية إلهي وحلية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وحا إلهي معي لا أهانية دنبقاق إلهي إنو ضافه
حق إلهي إنه كوك لفرية باطل كإنا كالجرتد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وحا إلهي سينا يا قفك متققا وإلهي كبقا لباتك كستي عريري كستي هم كستمركو كي ماله فرج با إلهي وغفريا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قفك إلهي كبقا سبحانه وتعالى وحا إلهي ويلا يا مخرج ودباتوين كوغبحه وحنا إلهي كأرزاق يا ميلونا كمل ليسنا هاي وحكوه ليس تقوى إلهي أرمها إن لقوا فضوضيه كوا أدون كان إن لقوا فضوضيه كوا آخرنا إلهي كوا فضوضيه إلهي وحلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبقى أرنتيس إلهي وحو كدق يا فضيت إلهي وحبك وعصلين معي ما دام آتها يقف إلهي حرير كوللي هي هجاتي إلهي أرمها كوا فضوضينيه هداي يقول تاي ماشى ugu fiican ba ilaahay kaaga sahlay haday adduunyo maal ay tahay meesha ugu fiican ba ilaahay kaaga sahlay haday amalka aakhira ay tahay meesha ugu fiican ugu khayr badan ba ilaahay kaaga fududeynaya haday saaxiibata kuwa ugu fiican ba ilaahay ku fududeynaya haday darista kuwa ugu wanaagsan ba ilaahay kugu soo aadinaya arimahaaga ilaahay waa ku fududeynaya hadaad ilaahay ka baqdid fi sirri wal alam markaad kaliga tahay oo meel qarsoon aad joogtid oo cid ku arkaysa aan la arag iyo marka dadka hor joogtida lagu arkahayo hadaa labada kolba ilaahay uga baqdi subhanahu wa ta'ala waxa aad sameynaysid iyo waxa aad i'tiqaadinaysid ilaahay subhanahu wa ta'ala umuraha waa ku fududeynaya taqwa allah waxa ku helaysaa ilaahay dadka cadawga ah shartooda ilaahay inuu ka xifdiyo ilaahay kuwa cadawga ah ilaahay inuu ka badbaadiyo ka ilaaliyo ilaahay wuxuu leeyahay wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a هذا صبرتان وإلهي كعب ستان سرقول كودا يا هجرسجودو وحبا يدين دبي مهاي وحو يدين دبي ماله إن الله بما يعملون محيط إلهي با وحي صبيري أن هريري وفشلنا هيا مال كستو عدو أي مليجان سرقول يدباتا أي ضدك مسلمين تأم مليجان إلهي سبحانه وتعالى وكبد بادنية انت او محاولات او اسكو ضيعه اي اسكو ضيعان اني بابيان او اي فساديان لكن ضد متقينه والهي كعب سنه او كجيره اي الهي سبحانه وتعالى ومضنا الهي كحفظنا يا جل وعلا وحاكمد الفوز بالجنه والنجاه من النار تقينمده وحا لو هلا او تقوى الله لو هلا قفك انه عذابك الهي كبدباد وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون إلهي سبحانه وتعالى إنه كبد بادية عذاب كيسا جننا وكل إمام وجننا إلهي سبحانه وتعالى أوهره سيدا أسامرك وحوية التقوى الله كعبسقو أي أقول لي هذا حي فضائشة واوين